horta magacayga waxa waaye nuur maxamed maxamuud magarta cabdishakuurow. haye nin waxaa laga keenaa dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd bishii 13 waxa xasuustaa sanadan. marka waxaana dib wadanka igu soo celiyay Axmed Awad iyo Taabit Cabdi Maxamed magaratay. haye marka magacaabista maanta la magacaabay duqa magaalada Muqdisho waa aad uga xumaanay waa ka naxay ani waliba ma ogeen dhalinyaro kamid ah Soomaaliya Mareykanka laga soo celiyay ii sheegtay marka wafseeda galida caada ka dhigeystay ninka magaciisa maqalnay ninka waa dhalinyarada waxa kula hadlayna caawa dhalinyarada dadka Mareykanka laga soo celiyay waliba hal bil xataa maana gaarin wali waxaana joognaa magaalada Muqdisho lacag badan aan baxayna meeshaas ku tahriibno galna dalka Mareykanka si sahlan wadanka noogu soo celiyay anagoo dhibaatadaas aan marnay in maanta madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ninkan soo magacaaban aad uga xumaana ma garatay. haye ninkan maxaa ku haysataan? ninkan waxaa ku haysanaa waa ninkii dalka dib loogu soo celiyay waay wili xataa ma hayno xataa wixii noogu talagalay oo loo soo diiba kama haynaa si Axmed Awad wixii dib u qaateen xataa mas'uuliyadda qaaday xataa waa ka soo bixi waayeen ani waa wili waxa maskaxdeeda ka taagan January 6deeda Taabit Cabdi Maxamed wiilo waay wuxuu yidhaa maanta maalin ahayna wadanka dib lagu celi doonaa haddaad maanta diido حتى وحنا نية ودمنا درسك ولا فصحاء دبعتها يا ماشى تاعي ودك Soomaaliya وأنا جدي إذا ما قرأته. هاي. marka ninkaas oo dhibaatadaas aad ka soo marsiyay wixii aan hore u marnaa anaga ognahay in maanta duqa magaalada Muqdisho leeyahay waa ka xunnahay waliba waxaan qabanqaabinaynaa banaabax ka dhan ah ninkaas ma garatay waa gartay marka xariira aan wada sameeyay dhalinyarada laga soo celiyay dalka Mareykanka waxay ku balaaqayaan in ninkaasi madaxweyne Farmaajo kulli anaga waxaan leenahay madaxweyne Farmaajo taageeraan ku haynaa laakiin ka laabo ninka go'aanka ah ku magacaawday waa inuu dib u laabtaa si Xasan Cali Khayre waxa yeelay 200 waxa la jira meesha Muqdisho joogto haddana dad ayaa la soo wadaa si nolosha bishaan hadda lagu jiro 10 si nolosha in dadka la soo celinaa 98 amana dhalinyarada mustaqbal ma lahan mustaqbalkeen nimankaana ku ciyaaray maanta in xilal loogu daro waxaan qaadan karnaa ma garatay haye tirada la soo celiyo kale ee uu gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit ku lug leeyahay mise gaarayaan waxa la soo celinayo dhan oo ku lug leeyahay hal xaba kaliya ma ahan Cabdishakuur waxa dhan oo la soo celinayo 7 ka dala keenay 9 ka hore loo keenay 7 hore qof loo soo qaadi jiro oo 7 soo qaaday Itoobiya soo marsiinayeen dhalinyarada aad u badan haddana 89 amal la soo wadaa 10 bisha la qiyaasay hadii 7 imaanin 10 bisha la soo wadaa ma garatay waxa waaye Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Cabdullaahi halkee laga soo celiyay waxa laga soo celiyay wadanka Mareykanka doorma laga soo celiyay bishii hadda dhamaatay March 10 keedii aan Muqdisho airport haye yaa ku soo celiyay waxa soo celiyay rag badan dawladii Soomaaliya yaa kamid ah baasatan waxa kamid ah labada nin oo Thaabit oo ugu horeeyay Cabdi Maxamed iyo ninka kale taliyada Axmed Awad oo safiirka Mareykanka ah Thaabit wali horta Mareykanka inta xirnay mis aragteen ismaana kina waa codkiisana maqalsiye video soo ah naloo wacay waxa weeye si aad u xun ayuu noola hadlay haye dhalinyarada Soomaaliyeed haye muxuu idin yiri markaa wuxuu nagu yiri in sheeg wadankii baa nabad ah waxyaalo badan oo la hadlay wadankii baa nabad anagoo rafaadsan dhalinyarada Soomaaliyeed ah oo meesha rafaadsan meeshii nin waxa waaye safiir Soomaaliya ama ku xigeen sheeganayo meesha inta suweynay hadallo wanaagsan ama dhalinyarada dadka la midka ah sida waxa waaye Itoobiya Kenya Uganda dhalinyarada dadka la mid ah iyo Afrikaanka la xirnaa safaaradahooda ama dadkii qonsuladoodu waxa soo booqanayeen ayaa si nasiib darro ah qofka loo wacay xataa inuu safiir yahay iyo inuu san ahayn xataa qof telefoon laga wacay nin jooga inuu yahay iyo nin kale cid uu yahay asagoo qubin ayaa waxa la yiri ninkaani waa hebel Thaabit hebelow aaliya qonsulka Soomaaliya ee u fadhiyo wadanka Mareykanka waa gartay marka Thaabit maanta waxa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayuu bedelaya gudoomiyihii hore madaxweyne Farmaajo wareegta rasmi maanta ka soo baxday ku magacaabay gaar ahaan kulankii golaha wasiirada sida u aragtaa marka in ninka aad sheegaysa xilka loo magacaabo wallahi aad iyo aad ayaan uga xumahay aad ayaan uga xumahay oo codka afka ku hadlaya dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa xabsiyada Mareykanka ku jiro oo ka buuxa iyo kuwa inta la keenaba codkooda aan ku hadlay aad iyo aad arrintaas uga xumahay waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaan reer Muqdisho waxaan ugu baaqayaa ninkaas inuusan masalin gudoomiyaha
magaalada muqdisho ama duqa midna wax xil ah oo dowladda soomaaliyeed ah inaanusan matelin waxaana ku baaqayaa gruubka farmaajo iyo xasan cali khayre in kalsoonidii shacabka soomaaliyeed in caawa laga bilaabo arrintaas oo lagu dhawaaqo maanta in ay lumiyeen sideedaba. haya socdaalkii maraykanka aad ku tagteen wax intee la ega ku sugnaydeen maraykanka wallahi ragga waxa weeye ragga dhalinyarada gruuba sibay ahaayeen qaarna waxay ku xirnaayeen 2 sano in ka badan inta uu gruubka dadka ugu yarna sanad iyo 8 bilood sidaas la kala ahaa qaar 3 sano marayay qaar ilaa hadda xabsiga ku jiraan 3 sano dhamaysta ka kor u dhaafeen rag badan ku jiro waxa la keenay waa in yarba waa 2 jeer diyaar wax keentay wax kala tan wax soo socdaan la sheegay wadadaasna waxa mas'uuliyadeeda leh rag badan oo xasasha ugu weynaay oo baalkii ninkala gaafow ninkala saabid iyo groupkiisa raggaas oo dhan ay ku jiraan iyo Axmed Cawad baa gartay maraykanka kale halkeed kaga sugnaydeen inta waxaan kaga xasuusnay anaga gobolka waxaan ku xirnay aniga gobolka leeyahay Florida ayaan ku xirnaa oo Miami Beach meesha xeebaha dalxiiska loo tago oo wadanka wadanka gobolkaas gobolka dhaqaalaha ugu badan gobolada ugu dhaqaalaha badan ayuu kamid yahay oo kuleyl kale oo qorraxda sida Soomaaliya ay tahay oo cimiladiisu sidaas ay tahay ayaan ku jirnay waxa weeye aad iyo aad nasiib daro ay u ahayd anoo intaas oo sano rag hadafkii aan u baxnay anoo gaarin inta xabsina la geliyo 2 sano xirnaano kadibna nala soo celiyo qadar ilaahay ba ku dhacday laakiin aad iyo aad ayaan uga xumaanay oo mustaqbalkeeni aan lahayn iyo hadafkeeniba dhalinyarada Soomaaliyeed anagoo waxa burburiyay ninka la yiraahdo Saabit Abdi Maxamed. waa gartay ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa ugu dambeyn waxaan ku talin lahaa in waxa weeye go'aanka madaxweynaha wareegtada ka soo baxday in uu madaxweynuhu kalsoonida shacabka oo la siiyay inuu san lumin waxyaabo dadka xilalka loo magacaabayo in uu ka fiirsado inay ummadan matali karaan iyo inaysan matali karin